بسم الله مقعي وعبد الغني الشريف وحان دكتا حرونتا SMTC وحان كبرتا بالهوسبيتال waxaan rabaa oo inaan soo jeediyo ama soo bandhigo blood grouping waxaan rabaa inaan ka sheego horta macluumaad quseeya blood grouping waxa waaye qeybaha ama groupiska uu leeyahay dhiig waa kala duwanaanshaha dhiiga qeybaha dhiiga taasoo lagu saleynayo base lagu dhigayo antibodies iyo antigen substances ka laga helo unugyada cascas ee la dhaxlo blood grouping faa'iidooyin badan ayuu leeyahay dadka in blood grouping kiisa la yaqaano oo la garto waxay faa'iido badan u leedahay waxa kamid ah emergencies markii lagu jiro kale blood transfusion markii qof la siinayo qofkan loo siinin dhiig qaldan sidoo kale waxay muhiim u tahay dambiyada criminalska blood groupingka muhiim u leeyahay sidoo kale paternity disputes khilaafaadka sida cunug yar waalidkiisa amal si loo determine gareeyo abiisa faa'iido kamid tahay sidoo kale waxay muhiim u tahay loo ogaado qofkani cudurka uu nugul yahay sida dadka group ooga waxay nugul yihiin kansarka duodenalka ku dhaco isoo kale dadka group A waxay nugul yihiin kansariska caloosha dhanxanaga si loo ogaado kuwaas ay muhiim yihiin reagents ay isticmaalaan reagentska waa kuwan hadda waxay miiskan saaran oo aan isticmaalayno waxa kamid ah midkan reagent A waa mid midka bluega reagent B midka jaalaha iyo reagent D midkan sida whitish kacma hadii qofka dhiig qaldan lagu shubo blood transfusion qofka markii dhiig la siinayo hadii aan blood grouping kiisa la ogeyn waxay keenaysaa in qaado qofka cudurrada bloodborne disease oo dhiiga raaco sida kamid tahay hepatitis A hepatitis B iyo HIV/AIDS iyo syphiliska qofka inuu qaado waxaan nigula talin lahay ardayda iyo waalidiinta in dhammaan dadka ay maqlayo ama fiirsanayo inay blood grouping kooda ogaadaan waxaan hubaa inaad barnaamijkadan faa'iido badan ka hesheen waxaan nigula talin lahay ardayda iyo waalidiinta in dhammaan dadka ay maqlayo ama fiirsanayo inay blood grouping kooda ogaadaan waa mahadsantiin